markaanu qiimayno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaan xagga amniga wada socota waxa lagu gudbiyaa si xun baa loo isticmaalaa aaladahan aan hadda sheegayno ku hadlayno qaarkood dadka waa lagu barmood gareeyaa xumaanta lagu barmood gareeyaa amniga lagu baabi'iyaa qarnimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabahaas baabi'iyaan oo baabi'iyaan marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh dhaq social kale oo dadka dhaqankooda leh wadabtoo haarun ummadan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashan ummad ma noqoto waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo ku habboonaato xilligan go'aanka in la qaato anaguna waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay qayb ka mid ah dagaalka lagu jiro qaran Soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuur ka duule leh oo gabadhu gabar tahay oo islaamtu hooyadu tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashay la helo baa noo muhiima waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu haya waxyaaba noocaas dhalinteeni khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaanna aanu habboonan la ogolayn bay ku baaba'een oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin wax waa dhigan kara laayihiin wax waa baran kara laayihiin marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed iyo lidku yahay madaxweynaha iyo wasaaraha waxa ka xanaajiyay sheega sabab TikTok loo xiro ina ogaatay martino يزقون الشراء اتحاد الفرد بلداننا وان كان عمل تتم فرد بلداننا وان كان كنا فيريا ودنتي وبحصري ودنتي وبحصري ودنتي وبحصري ميت كو على كان سي دي وبحصري وبحصري رجع ونقسي جديد من نقص جديدنا رجع او مالك مشغول بلداننا يوميت كو انت وبحصري ديك مدينه اذا كان نقص جديد كحاوي تيك توك ليو نيمانيا وتيك توك الى انا انيو مرق بايسنيو دبقه انا اجارتي نمد دبقه وين قد اجارتي بشي تطابق لا كدغنا نمد دبقه بشي تطابق لا كدغنا رزاري مدحوينا ودرت هدي الله بخنا لعق تيك توك شقي ودنا جير موغدو ادوا كاساه كحاويه انا كلي مي رك بدنا دبكا الى قباه انا دب ما قبا يعني بلدان انا ايدك مصبين انه كحاويه والله واحنا خصنا رانا نقض الملكي الأمير محني أن يعبر عن خالص قوة اتحاد الفرد بلداننا وأن كان عن عمل ويمران اتفاقية هدنة عائقا أمام أي ولاية